Beatrice Nyirahabimana waxa ay rajaynaysaa in ninkeeda la sii daayo. waxay labadooduba ka soo jeedaan Rwanda waxaanay degan yihiin Uganda. waxa ay sheegtay in Maars 2018 John Cloud iyo Karemye oo ah 37 jir ay xireen ciidamada Uganda. gaari nooha ah ayay wateen askar ayaa ka soo degtay gaariga qaar waxay xirnaayeen dhar rayid ah waxaa la ii sheegay in ay ilaa 6 askari oo hubaysan ay ahaayeen markii ay soo degeen ayay quryahooda cabaysteen kadibna waa la kala cararay qareenka Mr. Iya Karemye ayaa sheegay in markii hore lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa dawladda Rwanda laakiin hadda waxa lagu soo oogay dacwada ah inuu sitay hub sharci darro ah kaas oo uu beeniyay. Mabarara oo ku taal galbeedka Uganda waa magaalada ugu weyn ee u dhow xadka Rwanda. dad kale oo reer Rwanda ah ayaa halkan loogu xiray eedeymo la xiriira in ay xaqireen ama ku jeesjeeseen ciidanka amniga Uganda. howlgalka waxaa sababay in dad badan oo reer Rwanda ah ay tuuladan ku soo qulquleen markii ay halkan soo degeen. waxa ay fureen baarar iyo ganacsiyo lagu iibiyo gabdhaha jirka ka ganacsada. arrimaha ayaa walaac galiyay hay'adaha ammaanka. howlgallo dhowr ah oo lagu bartilmaameedsaday dadka reer Rwanda ayaa halkan ka dhacay. qaar badan lama warin sida howlgalka dhacay tuulada Rubiri. waxa ay sababtay in qaar badan oo ka mid ah dadka degan halkan la soo gudboonaato cabsi ku aadan mustaqbalkooda. dawladda Rwanda ayaa ku tilmaantay xarigan mid lagu dhibaataynayo muwaadiniinteeda. waxaana ay ku eedaysay dawladda Uganda inay taageerto kooxo fallaaga ah oo doonaya inay qabsadaan dhulkooda. qaar ka mid ah dadka Rwanda ayaa qaxootinimo loogu aqoonsaday dalka Uganda waxayna si khaldan uga faa'iideysteen xuquuqdooda qaxootinimo iyaga oo ka waday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo colaad ka dhan ah dawladda Rwanda. waxaa xaqiiqo ah in ay qorteen ciidan loogu tababaray Congo kadibna loogu talagalay inay Rwanda weeraro ka geystaan. Kampala waa ay beenisay eedeymahaasi waxayna sheegtay in ay ka go'an tahay in ay xiriir wanaagsan la yeelato deriskeeda. ma ogolin in Uganda loo isticmaalo xarun laga abaabulo waxyaabo carqaladaynaya nabadda deriskeenna. wadahadallaan sii wadi doonaa waxaana rajo ka qabaa in la xallin doono kala duwanaanshaha jira. waxaa jiray baaqyo caalami ah iyo kuwa ka imaanaya gobolka si labada dal ay xal uga gaaraan khilaafka taagan. labada dawladoodba waxay saldhig u yihiin ilaalinta amniga iyo deganaanshaha gobolka harooyinka badan ee Great Lakes.